labada rakacadood ee sunnaha ah ee ka horeeya adduunkan maanta ina dawaqiyay ee aynu arkayno iyo waxa dhex yaalla oo dhan oo aanay diintu ku jirin diin iyo dunya laba kala tahay diinta ka saar adduunyada iyo wixii dhex yaallo dunya ah labada rakacadood ee salaada subax la tukado ka horteed ee sunnaha ah ayaa ka khayr badan rasuulku rakacada koowaad faatixada kadib qul yaa ayuhal kaafiruun inta badan akhri jiray rakacada labaad faatixada kadibna qul huwa rakacada labaad faatixada kadibna qul huwa allahu ahad wa akhri jiray sallallahu alayhi wasallam markaasuu wuxuu yidhi xadiiska muslim rakacata alfajri labada rakacadood ee salaada subax markay dhalato la tukado ee sunnaha ah khayrun min addunya adduunka waa ka khayr badan yihiin wamaa fiiha iyo dunida waxa dhex yaala salaada subax waa laga aamusa sunnihii ka horreeyay ee labada rakacadood ah